السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامية يامان هولا كريتو ayaan galay arrimo gabar ku saabsanaa laba gabdhood oo walaalo ah oo reerkoodii qoyskoodii inta laga soo qaaday muddo fara badan ba la joogay ama la noolaa reer kaleeto. gabdhahaasi dadaal badan baan ku bixiyay qoraaladayda waad aragteen Facebook email ku soo qoray. waxaan rajeynayaa inaad maaragtay idinkuna ka qayb qaadataan sidii aad qoraaladaas u faafin lahaydeen. micnaheedu maaha inaad intaad faafisaan aad yani ujeedo kale maaha. ujeedooyinka aan ka leeyahay waxa weeye in waalidiinta kaleeta ee arkaya ay iyaguna dhibaatooyinka ay ka hortagaan ama hadday dhibaato haysatan ay meeshii ay caawinaad ka heli lahaayeen ay aadaan. waayadan dambe shaqooyinka aad ugu fara badan runtii ma awoodi karo inaan maaragtay filmo fara badan aan duubo. sidaas darteed waxay noqonaysaa inay filmadaydu teel noqdaan amaba baraha bulshadaba laga waayaba maaragtay aad bay ugu adag tahay markay filimka duubistiisa jarjaristiisa islukeentiisa qoraalada ku qoristiisa waxaasoo dhan waqti bay u baahan yihiin. waqtigaasaytina aad buu ciriiri ugu yahay. su-aasha aan rabo inaan ka jawaabo dad fara badan ay soo weydiiyaan luuqa ay ugu soo qoray qaarkoodna Facebook public ahaan ay ugu soo qoray waxay ahayd waxaanu jecelnahay inaanu badbaadino caruurta dhibaatooyinka haysto Soomaalida waxba ka mid noqdaane. waxaynu rabnaa in aanu noqono yiraahdeen dadku reeraha macnaha caruurta haya dariiqay baan u mari karnaa sidee baynu maaragtay family ahaan baa liiraa sidee baynu u noqon karnaa. marka qoraal baa idin soo qoray macnaha qoraaladaas iyagoo faahfaahsan waxaad ka helaysaa Google-ka haddaad rabtaan. laakiin anigu wixii baan isku soo toosiyay waxyaalo kale toon meelahan ku oolino isaga soo daray si aad warbixin buuxda uga heshaan insha Allah. cajiladan waa ugu talagalay inay dheeraato qofka dantaas leh macnaha inuu familkaas uu noqdo caruurta haya baa sii fiirsan doona. kuwiina kale waxaan malaynayaa inaad meesha hadda joogtaan aad ku damin doontaan. laakiin kuley ilaa weyn maaragtay inaad walaalihiina kale aad la qaybsataan markaas dhibaatooyinka jira ka wada bixi mayno haddaynan dhammaanteen si wada jir ah qof walbaba kaalintiisa uusan uga qaadanin. marka waxa weeye maxaad u baahan tahay maaragtay horta reerka inaad noqoto qoys haya caruur haya. horta marka hore waa inaad si fiican uga fikirtaa inaad doonayso rabitaankaaga macnaha inuusan kugu noqonin wax la soo bood oo mar kaliya laab la kac ah aad runtii ka fikirtay in aad maaragtay caruur gacantaada inay soo gasho. waxay noqon karaa ilmo yar bay noqon karaan kuwa meel dhaxaad bay noqon karaan iyo kuwa teenage bay noqon karaan oo daadi qaangaarka ku soo dhawaaday. marka waxay doonaan marka adiga intaad xisaabtid bal horta waqti ma haysataa waqti aad caruurtan geliso oo dheeri ah oo adiga ka banaan ma jira oo macnaha isla markaas aytina intaan isla markaas aan u gudbin macnaha waqti ma haysataa oo adiga intuu kugu filan yahay waliba ka badan oo caruur kaleeto iyo dad kaleeto aad gelin kartid. macnaha haddaadan gelin karin waxa wanaagsan inaad ka istaagto meeshaas aad kaga istaagto because ilmaha laftooda dhaawac baad u geysanaysaa. ilmaha marka lagu keeno oo gurigaaga lagu keeno haddii aad isfahmi weysaan ama adiguna aad waqti u haynin oo dana kaleeto aad ka sii qabsato ilmahaas waxay noqonaysaa haddana in la qaado oo meel kaleeto la geeyo. yani ilmahaas uma fiicna marka guryahaas faraha badan leh oo ay badbedelayaan. waxaa fiican hal guri intay yimaadaan gurigaasna ay ku nagaadaan. haddaba way haystaan meel ay cunto ka cunaan haddaba way haystaan meel sariir ay seexdaan. laakiin ma aha uun in sariir ay seexdaan iyo meel ay cunto ka cunaan kaliya ay u baahan yihiin. waxay u baahan yihiin macnaha ka warqab. waxay u baahan yihiin la sheekaysi. waxay u baahan yihiin inaad raacdo la socoto xataa kubadahooda aad daawato oo la soo socoto. yani inaad booskii aabaha iyo hooyada oo ilmahaas ka maqan inaad u gasho. midda kale waxa weeye ma u haysaa meel ay seexdaan. ciyaalku waxay u baahan yihiin qol iyaga qaas u ah. hal qol oo iyaga qaas u ah haddaad u heli kartid oo adiga ka banaan ilmahaaga iyo gurigaaga qoyskaaga markay yani wuxuu helaan hal qol oo cunugaas u xiran inaad adigu hayso. sababta loo leeyahayna waxa weeye macnaha lacala hadda cunugaas caruur weeye
laba qof oo guri ku wada nool way isku dhacayaan midda kale waalid baa tahay de go'aanaad adag baa laga doonayaa inaad gaartid markaad go'aanadaas gaartid ilmihi haday caroodaan ama ay ma garatay ay oohin iyo maaragtay murugo iska qabsato waxay u baahan yihiin meel ay wajigaaga kaaga qariyaan ama adiguba haduu dhib ku keenaa tirada war ordo soo qolkaaga aad ku tiraahdo soo qolkaasi tuu amaan ku helo waxa looga dan leeyahay taas weey midda saddexaad waxa weey horta ma awoodina ma haysaa marna waxaan ku eray waqti ma haysaa mar waxaan ku eray qol isaga qaas uma haysaa marka kale tana awoodii kartidii ma haysataa yani waa saddex shay oo isu dhow hadana isku meel ku imanaya hadana runtii mid walbaba goonideeda mug iyo qiimo u leh fahmaysa soo marka inaad adigu ka fikirto adiga isoo ganiga kuma ogi macnaha adiga isoo soo marka maxaa marka loo baahan yahay waxa kale talaabooyinka inta aadan adiga waalid ahaan ama qof ahaan ama qaangaar ahaan aadan talada aadan go'aanka iska gaarin family ahaan baraba inaan noqdo ama guriga macnaha caruurta ku haynay intaad iska gaarin waa inaad kala tashataa ilmahaaga ama caruurta iyo qoyskaaga ninkaaga ama naagtaada macnaha waa inaad kala tashataa sababtu waxay tahay hadii iyagu ay saacidaad ka imaanin ilmahaasi guriga la keenayo laftiisa wuxuu la kulmayaa faquuq يعني فقوق وحاوي معناها جوري عن الماء أنا جوري لقى شعلين وعديك عاد سنك كجلس وقدر قصي هدي وياهي معناها الماء سيتي فرحتكم النولانة of course أكتر هذا لقي يعملوا فرحتك على نولانة لكن قيسك أنتي سكلته فرحتكم قبان سو سيدا صرت هذا مرحلة وانا أكسن مركورة إنها تقريب جلسيد قانك عديك عاد قادني سيد والدهان إن الماء نيتي جوري جاي مدن intaas marka ay soo dhamaato oo aad ka soo goodo oo aad xafiiska ceyrta waxa jira qayb qolo micnaha family hamka kuwa raadinaya ay rabaan oo la iska diiwaan geliyo oo codsi loo qorto soo codsigaas marka u qortid muddo kadib way kula soo xiriiriyaan waxay ku leeyihiin waanu ka helnay markay codsiga aad qoraysid baad ku sheegaysaa qofka aad tahay waxa tahay iyo bulshada numberkaaga waxa oo dhan baad ku qoraysaa soo marka waxay ku leeyihiin waan ka helnay waxaan u baahanahay inaan baaritaan kugu sameeyno baaritaanku marka u treednin baa la yiraahdaa baaritaanku marka ama adaa lagu sameeynaya ama adiga iyo ninkaaga ama adiga naagtaada baa loo idinku sameeynaya macnaha hadaad kaliya tahay hooyo kaligeeda tahayna kaliya baa lagu sameeynaya hadaad aabba kaligiis tahayna kaliya baa lagu sameeynaya hadaad wada joogtaan labadiina la isku idinku sameeynaya macnaha ma garatay ilmahaas guriga markuu uu joogo hal qof kaliya uu mas'uul ka maahay labadiina uu mas'uul baad ka tihiin soo sidaas darteed baa macnaha qofka kale tan baaritaanka loogu sameeynaya waxa lagu weydiin doonaa noloshaadii caruurnimadaada korriimadaada siday ahayd aabaha qoyskaaga reerkaaga caruurtaada walaalaha ayooyinka abtiyaasha waxa soo dhan waxa la rabaa in qof la og yahay oo baaritaan soo maray oo yani la hubo in la isu keeno muxuu ahaa iyo marxaladda maanta aad ku sugan tahay situation kama marxaladda maanta aad ku sugan tahay ayaa laga rabaa waxa la kulmi doontaa dadkaasi ay baaritaan kugu sameyn doonaan ugu yaraan yani saddex kulan baad kulmaysan oo baaritaankaas kaliya ama gurigaaga kugu imanayaan mar way arkayaan macnaha guriga aad sheegaysid caruurtan u hayaa aad leedahay marna xafiiskooda ugu tagaysaa ugu badnaana 5 baad la kulmaysaa oo waxa jira su'aalo 120 iyo wax saasa ka badan oo su'aalood oo dhowr nooc ah macnaha lagu weydiinayo qaarkood ha iyo maya ah adoona sharaxaad ka bixinin ha iyo maya aad leedahay iyaga ku sheegaya kula soconayo maartay ka qayb gelinaya waxa kale oo ay sameynayaan waxay raadinayaan wax la yiraahdo business register macnaha hadii aad xukumo hadda ka hor kugu soo dhaceen dambi ay kugu soo dhaceen marka waxa haya registerkaas wuxuu ku jira booliska qayb waxa jirta karuuna degan oo dadka dambiyada galay macnaha computer dadka dambiyada galay lagu xareeyo halkaas baa laga doonaa business register waxa kale oo jira isagana register kale oo asna laga baarayo oo la yiraahdo social register macnaha waa xaafada aad degan tahay ceyrta ama xaafadaha aad degnayd ceyrtooda baa laga soo baaraya macnaha hadda laftaada tahay qof dambiyo social ah galay ama ilmahaaga hadaad dhibtay ama adigu laftaada hadaad ceyr qaadan jirtay sidaad u qaadan jirtay waxay ahayd iyo macnaha waa lagu soo baaraya waxa kale oo laga soo baaraya register kale oo
register kaleeto oo ah corona food register macnaha haddii dayn iyo lagugu leeyahay dalka macnaha haddaad dayn intaad qaadatay dee qof ilmaha lacag ka samaynayo looma baahna macnaha waa inaad tahay qof asaga isku filan oo lacagtiisa iyo noloshiisa shaqaysta oo noloshiisa maareeyay oo kasoo baxay baa ilmo korin kara laakiin qof isdhahaya ilmahaas soo qaado guriga keeno macnaha lacag ka samee waxaas waa waxa la diidayo so corona fogdarka laga fiirinaya waxa la fiirinaya haddii deyn lagu leeyahay yani qofka corona fogdad galaw xisaab xil ma laha baa la dhahaa Soomaaliya qofka meeshaas gala macnaha waa qof saaqid ah oo biilashii loo soo diray muxuu ahaa biilashii loo soo diray bixin waaye so marka waxa laga meeshaas marka la fiirinayo waxa la fiirinaya mas'uuliyadaada yani deynta caadi waaye deyn hadii lagu leeyahay oo deyntaada mar walba aad bixisid caadi waaye macnaha ra'iisul wasaaraha wadanka ayaa deyn lagu leeyahay magaraysaa soo dhib weyn ma jiro waxaa jira register kale oo la yiraahdo mistake register macnaha dadka dambiyada looga tuhmay macnaha hadii hadda ka hor dambi lagaaga tuhmay oo dambigaas uu yahay dambi dagaal iyo fawdo iyo caruur aad faraxumaysay ama caruur aad dishay taasoo kale lafteeda waa dambi meesha ku jira oo isagu laftiisa u baahan maaragtay in ay ka fikiraan haddaan dib u noqdo belasting registerka dad waxaa jira belasting register ku jira oo ma hadda ka hor galay laakiin u galay waxyaalo fudud oo minor ama qiimo lahayn tusaale ahaan gaari baad xoog u wadaybo oo limitkii gaariga jidadka loogu talagalay baad kor u dhaaftay marka waxa lagu siiyay ganaax lacag ah baad bixisay registerkaas waad galaysaa laakiin waxa ay raadinayaan ciirtu waxaas maaha waxay raadinayaan dambiye waaweyn oo dagaal iyo kufsi iyo dhac iyo boob iyo hagardaamo iyo waxaasiti caruur wax lagu sameeyay faraxumeyn iyo waxaasiti baa waxa la raadinaya maaha gaari aad xoog ku waday dambi aad gashay kaas maaha midka la raadinaya ama laga raadinaya registeradaas waxa kale oo jiro oo kale oo marxaladda dhaqaalahaaga hadayna waan tilmaamay dhaqaalahaaga maanta macnaha qof iskaafiyay oo isku filan oo noloshiisa maareyn kara ma tahay macnaha ma qof macnaha ilmahan u qaadanaya inaad lacag ka samayso miyaa tahay mise waxaa tahay qof ilmaha u naxariisanayo naxariista kale iyo laab iyo beerka iyo wadnaha kaaga jirta oo ilmahan u naxaya so sidaas darteed waxaa fiican macnaha qofka marka aad dalbanaysid waxaas inaad ogtahay ama aad ka hortagtayba sidaa kale qof baa iyaguna dad baa waxay ugu yiraahdeen qof iyo laba inay ahaayeen baan malaynay waxay ugu yiraahdeen waana la baaray yani diyaar baanu nahay waxaan u baahanahay caruurtaas aan ka hadlayay anaa qabanayay walaalo isi ama tilmaam yani ma aha intaad baxdid aad qof xeer intaad wacday tiraahdo ilmahaas baan maqlay ilmahaas inta aniga la ii keeno saas caruur la isugu keeno macnaha adiga ilmaha waxa la sameeyaa wax matching la yiraahdo waxa la isu barbardhigayaa noloshaada sida ay ahayd waxbarashada iyo rabitaanka noloshaada sida maanta heerka aad taagan tahay iyo ilmahaanayti heerka laga rabo inuu gaaro so waxa la qiyaasaya macnaha inaad tahay waalid ku filan oo ilmahaanayti hankiisa kor u qaadi karo so sidaas darteed baa waxa weey waa la isku kin yani waa la isku kin doonaya macnaha matching baa la yiraahdaa matching waa la isu dooqaya macnaha adiga iyo qofkaas ama cunugaas kale waa la isku kin dooqaya kelmadda ugu dhow oo aan garan karo waxa weey waa la is siiyay Soomaaliya arkin dumarka intay rag intay soo doontaan Soomaaliya watii la jiray hebel yani reerka bixiyay waa la siiyay yani waa la isu dooqay waxa weey caruurtaas itibaadag lagu dooqaya muhiimkan waxa weeye yani in aad adiga aad ka soo baxdo waajibaadkaaga si aad faylkan kugu galo mariid fiican aad ka samaysid haddaan dib ugu noqdo gabadhii ama gabdhihii arrinkooda meel fiican buu marayaa insha Allah waana ka warqabi doonaa hadii Ilaahay idmo hore baan uga socon doonaa waan ka warqabi doonaa idinkuna sida aan idin sheegay cajalado waxa jira fara badan oo hadda ka hor aan sameeyay oo ku jira YouTube-kayga
يعني هدان maalin walba cajalad cusub aan soo duubo oo marmarka qaarkood wixii hore aan ku soo celiyo qiimo weyn ma sameynayso waxa qiimaha weyn sameynaya waxa weeye inaad dib ugu noqoto cajaladaygii oo kuwaas aad dhegeysto waan garanayaa wixii cusub caalamka jecel cajalad cusub iyo waa la isaga jeceliye waa la isaga baahan yahay laakiin anagu cajalad ma duubi karo uun duubis ahaan iska duubuun ma duubi karo maadaama wixii aan ku hadli lahaa arrimaha qaarkood aad ka helaysaan cajaladaha hore aan soo duubay so marka way fiicnaan lahayd inaad qaybisaan cajaladahaas intii hore u socotaan qaybisaan oo muxuu ahaa aad isgaarsiisaan waliba dad waxaa jira warbixinta markay iyaga ay helaan iyagoon isku kooba oo aanan waliba faafinin facebookyada iyo messengerka iyo dadka kale waxaan ku arkay waxyaalo maala yacni ah oo aan xataa diin ahayn oo marmarka qaarkood shirki ah waxa sameey macnaha mardhow waxaad arkaysaa iyagoo qaybinaya war waxaad qaybinaysaan oo shirkiga ah oo aan diinta ahayn walaalayaal waxaan nooga fiicnaa inaad qaybisaan cajaladahan wanaaga waxaan hubaa hadeertan haddaan halkan soo fadhiisan lahaa oo aan madaxweynaha iyo madaxda iyo xildhibaanada wadankeena jooga iyo qabiilada wadankeena ka jira haddaan cayn lahaa waxaan hubaa 100% inaad maaragtay cid walba ama hoosta isaga gudbiso oo aan heli lahaa 100,000 oo idaawata laakiin maadaama aan ka hadlayo wax wanaagsan oo horumar u ah mujtamaca aynu ku noolnahay qof kasta uu iskaaga dhiga tiray because waxaan ka hadlayo ma wax qosol keenaya waxaan ka hadlayo ma wax ku farxad gelinaya laga yaabay sidaas darteed macnaha waa la iska dhiga tiray heeso kale hadaad fiiriso YouTube-yada waxa fiirsatay intaas 100,000 waxa fiirsatay 1.6 milyan oo qof baa fiirsatay midaan maanta arkayo dad luuq ay ugu soo diray marka sidaas aad luuq ay ugu soo diraysan waxyaalaha wanaaga oo aan ku hadlayno luuq ugu dira dadka waxa laga yaabaa inaad adigu u baahnayn sida qoraaladayda hore aan ku soo qoray laakiin markaad xataa Facebook aad ku share garayso waxa laga yaabaa hooyo iska aamusnayd oo adiga saaxiib kula ah inay aragto ay ku dhiirato inay talaabo qaado so marka ha isdhihin macnaha maxaan u share garaynaa anigu dhibaatadaas ima haysato saas maaha yani waxaan ka hadlayno waxa weeye jiilka kale ama dadka kale to aniga aan saaxiibada ila ahayn oo ay gaarayso hadalkayga intaas baan rabaa maaragtay inaan ku soo gabagabay cajaladeyda waxaan u malaynayaa sida caadada ahayd waa iska hadal jecelahay in cajaladii ugu dheeraatay inta aanu programkan mid la mid ah aanu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa amaana Allah iyo amaana rasuul nabaday